value qiimaha lagu dhisaa waxaa jeceshahay baa lagu dhisaa waxaa jeceshahay miiska soo saaro arabtina noqotid dhammaan waxaa jeceshahay soo qor miiska soo saaro qor waxaa rabtay inaad noqotid markaa qorato wixii aad rabtay inaad noqoto qiimaha adiga kugu lahaa sharafta kugu lahaa miiniskii raaca qaabka ku gaari lahayd ka fikir marka waqtiyadaad gaari lahaydna ka fikir waxaad kaloo ku darsataa sida ay u kala muhiimsan yihiin inaad usoo kala hormarisid waxyaabaha muhiimka adiga ku ah oo dhow soo hormari waxyaabaha muhiimka ahayn daba mari shayba shay ka muhiimsan yahay ka soo hormari sanadkan waxyaabaha kugu muhiimsan inaad qabanaysid qor waxyaabaha aan aadka muhiimka u ahayn ku xiga ku dar kuwa ku sixij qorshe noocaas markaad samaysid sanadkaa waxaan hubaa qoyskaaga inuu noqon doono qoys wada haysta jidkaa u haystana meesha uu ku dambayn doono uu u muuqdo sawirkaasna maskaxaada uu ka buuxo hiraalku waa wax macaan waa wax carfoon waa wax macaan waa wax kuu soo udgaya marka uu qalbigaaga galo sababtoo ah markaad ku hamido inaad gaadho meel sare inaad gaadho maaha wax sahlan inaad ka fikirto markaad ka fikirto inaad qoyskaaga meel sare geysidna macnaha ay ku abuurayso waad garanaysaa iyadaa ku riixaysa iyadaa waxay kuu noqonaysaa motivation iyadaa ku wadaysa waddo kale ku leexan maysid waxaa kuu muuqda meesha harta inaad gaadhid ilaa meesha harta inaad gaadhidna waa soconaysa waqti ku bixi kharash ku bixi maxaan ku yidhaahdaa talo ku bixi waad gaaraysaa doonaa waa gaara in hiraalku macno weyn leeyahy waxaad ku garanaysaa oo uu ka muhiimsan yahay dhaqaalaha haddii adiga ilaahay caqli ku siiyey oo lixaad ku dhammaystiran tahay oo aad adduunkii ka faa'iidaysan laadahay adduunka ilaahay ku siiyey waqtiga ilaahay soo dhibaato ma maanta adduunyada waxaa ka faa'iidaysanaya dad aan naafo ah oo lixaad beelay dad indhala dad aan lagu lahayn gacmo lahayn baa maanta adduunka ka faa'iideynaya oo iyaga intay ka faa'iidaysteen qoysaskoodan uga faa'iideeyeen ummaddii kale uga faa'iideynaya adoo caqligaagii iyo garashadaadii iyo lixaadkaagii iyo taladii ay joogto ka waran war qoysku wuxuu u baahan yahay inaad u fikirto ilaahay hadduu caqli ku siiyo lixaadkaa dhammaystiri u fikir qorshe u same u dhammaystir waxaana tusaale inaa usoo qaato Nick Fijis ninka la yidhaahdo oo Australianka halkaasaa gacmihiisu ka go-an yihiin lugihiisuna halkaas ka go-an yihiin waa lugalaaya meeshaas inta ahaa far iyo suul keliya uu ku leeyahy muxuu qabtay ninka billah calaykum ilaahay ku dhaariyey qof labada lugood go-an tahay labada gacmoodna go-an tahay maxaad u malaynaysaa inuu ku fekerayo waxaan filayaa inay aad u xanuun badan tahay qofkii ilaahay intaa tiray qofka kale oo aan ilaahay tirin arka yaaba xanuunsanaya ninkaas muxuu sameeyey asagoo lugihii gacmihii go-an yihiin buu qorshe samaystay hilaal buu samaystay dadku say u fekeraya dhan wuu bedelay maskaxdii bini aadamka o dhan wuu bedelay shaquu qabtay niyad buu la yimid qorshuu samaystay qorshahaas suu ku gaaro ka fekeray maanta asagaa la dhegeysanaya asaga dadka wax u sheegaya bal u fiirso Nick Fijis asagii naafada ah oo lugihii gacmaha yaa qoraya oo jaamacad dhigtay oo ka baxay oo maxaan ku yidhaha oo ah maxaan ku yidhaha maanta nin motivation oo dadka wax u sheegaya asagaa dabaalanaya computerka asagaa lugta yartaa labadaa farood ku qoraya ya bahal xun oo basketball asagaa cayaaraya asagaa dadkii u sheegaya noloshu inay tahay in laga faa'iidaysto in waqtigu kaa luma maaha qoyskaaga marka intaad dhisto adoo lixaadkaagii qabo caqligaagii joogo oo habeen iyo maalin socon karo oo habeen iyo maalin qoraal samaysan karo oo habeen iyo maalin talaad u buuxdo haddaa intaad reer dhisto gabadhii guriga geyso aad halkaa ka baxdo waagay dhashanaad ka dhaliso waqtigu suu ku maamulana aad sugtid wax ka liita oo rag ama garanayo marka waxaa la rabaa si aad u hesho qoys baraaraa oo mustaqbalkiisu ifayo noloshana ku raaxaysta buuxi booskaaga hoggaaminta faham mas-uuliyaddaada mas-uuliyaddu waxaa weeye waa waxa ugu muhiimsan oo aad ka fekerto haddii aadan booskaas mas-uuliyaddaada buuxinna fashil iyo kala cararkana haysta maanta koo waxaa ka ah hoggaan la-aantaas qoyska ah oo aanaan fahamsanayn weliba aabbayaashu aysan fahamsanayn inay guriga ah u sameeyaan qorshe nololeed iyo hiraal reerkaasu higsado sababtoo haddaa adiga guriga hiraal u samayn weydid oo u abuuri weydid qofkaas wuxuu bidhaansado
layr u baxaya oo meel fog ka baxaya haddaad tusi weydid oo aad xaaskii u sheegi weydid halkaa inaa u socotaan saa ku gaari lahaydeenna aadnan ka tashanin dee mugdi baad soconaysaan. inaad reerkii biil keliya siiso oo aadnan qorshe lahayn oo balaan lahayn oo talo lahayn oo meeshaa u socotay adnaan garanayna waa mugdi, wax ka xun ma jiraan. marka waxaa loo bahay inaad aada u fahamtid in uu yahay qorshahu iyo hiraalku iftiinka layrka la raacayo kugu hagaya waddada saxda mustaqbalkaaguna. in sha allahu tacaala casharkeenna maanta intaasuu noogu dhan yahay. waa Cusmaan Sheekh oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.